gabadhaniti isma lahayn falkaniti wuxuushnimada aad samaysay waa lagu ogaan doonaa heer waxaad gaari doontaa xitaa maxkamad lagu saaro sababta in ninkeedii ay sumaysay iyadoo doonaysa in lacagtiisa ay qaadato si nin kale oo xiriir ay la lahayd nolosha markaasiti oo lacagta ninkeedii ay ka qaadatay oo ugula midoodo noloshana sidaasiti ay ku bedesho waxa ay fashayba xitaa in ninkeedii markii uu geeriyooday maalmihii xigay reerka iyadoo isaga dhigayso qof daacad ah in ay samaysay in qof murugaysan reerka isaga dhigto tiiraanyasan inta badan oo qof ooynayo kale markaa reerka u jilaysay si loogu maleeyo qof daacad ah kana tiiraanyasan falkaniti ninkeedii ku dhacay waxa ay jilaysay jilin ah in reerka ay ka dhaadhiciso ay ku qancaan in qadar markaa ninkaniti uu ku yimid oo sidaasiti u geeriyooday wadnahana markaasiti laga qabtay ninkan qisada ay quseysay iyo gabadhan waxaa lagu magacaaba saan iyo safiya markaa lagu kala magacaabaa waxaanay ka soo jeedaan waddanka City India gaar ahaan gobolka City lagu magacaabo Kerala waxay ahaayeen dad derisa oo yaraantoodii isla soo barbaaray waqtina isla soo qaatay nolosha iyagoona heerarka kala duwan ee waxbarashada xitaa si wada jira markaa City u dhameeyay ilaa heerka koowaad ee jaamacadan ay dhameeyaan 2003 oo xiriirkoodii markii ay qaangaareen kadibna waxa markay u sii bedeleen in xiriir jecel ay ka sii dhigaan si nolosha markaa City laba qof oo wada jir ah waqtina nolosha markaas ku sii jira oo isla sii jooga ay u sii ahaadaan waxa xiriirkoodii markii sida City u sii kobcaba iyaguna ay dhameeyeen heerka koowaad ee jaamacadda ay isla qorsheeyeen in noloshooda markaas ay isla qaabayaan waqtiga ay isguursan karaan oo guur qorshihiisa markaas ay sameeyaan xilligaas maadaama gacanta aysan ku helin qarash iyo shaqo markaas kaafin karto oo mishaar fiican ay ka heli karaan waxa ay istuseen in muhiimad markaas ay leedahay maadaama India dadkeeduna ay badan yihiin in muhiim markaas ay tahay in labadooduba markaas ay sameeyaan heerka labaad ee jaamacadda si shaqooyin wanaagsan oo mishaar fiican ay u helaan lacagaha ay ka arursadaan shaqooyinka waxa ay ku ballameen in noloshooda ay ku dhistaan oo guurna markaas sida ay ku sameeyaan waxa 2003 markii heerka koowaad ee jaamacadda ay dhameeyeen ay kala aadeen ninkan lagu magacaabo San iyo gabadhan lagu magacaabo Sofia laba gobol iyo markaas kala aadeen si heerka labaad ee jaamacadda markaas ay u sii bartaan ninkan waxa uu diyaarinayay culumta ganacsiga heerka labaad ee jaamacadda iyo markaas masterkiisa ku diyaarinayay gabadhaneetina waxa markaas ay diyaarinaysay heerka labaad jaamacadda dhanka injineeriyadda ay ku sameeysay iyadoona aaday gobol kale oo jaamacadda markaas ay dooratana waxa ahayd Mahatma Gandhi jaamacadda lagu magacaabo in halkaas kuliyad injineernimada markaas ay ka diyaarinaysay gabadhan halkaas marka ay tagtay daraasadeedii ay bilowday oo dadkii marka ardaydii wax isla baranayeen ay isbarteen waxa jiray nin si gaar ah markaas u soo jiitay oo saaxiibna markaas la noqotay bilowguna xiriirkoodu waxa markaas uu iska ahaa dad caadi ah waxaana markaa ninkan lagu magacaabo Arun oo gabadhaniti Sofia jaamacadda Mahatma Gandhi kuliyad injineerna markaas iskala baranayeen waxa dhacday in xiriirkoodii bilowgu markaas uu iska ahaa dad caadi ah oo inta badan markaas si ardaynimo isu kaashada hadafkoodu sidaas markaa ahaa oo dad wax isla akhrista imtixaanada isla diyaarsada waxbarashada isku garab siiyo xiriirkooda markaas ahaa laakiin waqti markii uu soo jiray waxa markaas dhacday in xiriirkoodii markaas uu soo xoogeystay oo heer ninkaniti Arun ah waxa markaas uu gaaraba qalbiga gabadhaniti Sofia uu kaga saameyn bato ninkii hore ee xiriirka markaas kala dhaxeeyay Sofia waxa markaa dareenkan maadaama ay dareemayso ninkanitina Arun rabitaan inuu ugu jiro markaas ay aragtay waxa isla qorsheeyeen ninkaniti Arun iyo gabadhaniti lagu magacaabo Sofia ee jaamacaddaniti dhiganayay Mahatma Gandhi kuliyadda injineernimada in xiriir iyaga dhankoodana sidoo kale markaas ay sameeyaan Sofia iyadoo ninkii hore xiriir markaas la leh ballan guurna markaas la gashay waxa ay sameysay in ninkaniti cusubna isagana xiriir kale markaas ay la sameyso oo laba xiriir iyo sida markaa ugu wada jirtay oo danteeda markaas waxa uu ahaa in muhiimadda markaa ninkaniti xiriirka koowaad la leh in markaa ay ku dangaarto ninkan labaadna maadaama rabitaan qalbigeeda sida ay dareemayso saameyn badan uu ku yeeshay waxa ay istustay in ninkaniti labaad ee jaamacadda markaas la dhiganayay in ninkaniti markaa mustaqbalka isaga ee la qorsheyso oo ninkii hore kaliya ballankii sidii oo la dhigtay qalbigeeda markaa hadal uu noqday oo qalbigeedu go'aankii wixii waa uu ka tanaasulay ninkii hore xiriirka markaas guurka ee la gashana aragti ahaan waa isbedeshay nolosha markaas uu arkaysay waxa dhacday in waxbarashadii masterka ay soo dhameeyaan ninkan labaad ee xiriirka gabadhaniti la lahaa Sofia maadaama waxbarashada ay soo dhamaatayna
waxa uu shaqo ka helay uu aaday waddanka City Australia si noloshiisa halka City marka uu kaga sii wato oo shaqooyin halka City marka ka helay. Gabadhan lagu magacaabo Sofia gobolkii dib ugu soo laabatay. Ninkan lagu magacaabo Sam isagana waxbarashada maadaama uu soo dhameeyay gobolkiisii dib marka City ugu soo laabtay. Waxaana ay bilaabeen shaqooyin si noloshooda marka City ay u sii kobciyaan oo ay nolosha hore u sii wataana. Shaqooyinkooda waxa marka ay aruursanayeen in lacagahooda marka City ay qaabeeyaan nolosha ahaan sida marka ay u nool yihiin oo lacag ay aruursadaan si noloshooda marka City isku sii guursa oo guur ay u sii qorsheeyaan iyo hadafkooda marka City u ahaa oo waqtiga ay ku ballameen oo ku aadan ilaa 2008 oo guurkooda marka City u dhacay in lacag xilliga City marka ay aruursadaan ay ku ballansanaayeen oo guurkooda marka City u dhaco. Waxa dhacday in waqtiyada kamid ah ninkan lagu magacaabo Sam gabadhan lagu magacaabo Sofia gurigooda marka City uu keenay si reerkiisa marka uu u baro una sheego gabadhan aragti ahaan in uu doonayo nolosha in uu la midoobo oo jacaylkiisa marka City ay tahay reerkiisa uu marka baray. Xilliga City waxa dhacday in ninkan lagu magacaabo Sam aabihiis gabadhan marka aysan cajibin. Waxaan wiilkiisa marka uu sheegay in gabadhan uusan ku qanacsanin uusan la doonin wiilkiisa. Laakiin ninkan lagu magacaabo Sam hadalka aabihiis waa uu ka dhiga adeegay oo waxa dhacdaba in gabadhina marka City uu sheegay in reerkiisu aysan la dooninin. Xilligaas gabadhu waxa marka City ku tiri ninkan lagu magacaabo Sam okay reerkaaga ka soo dhamay ku dadaal in marka City aad guurka ka soo dhameysay iyo ku dhiirigelisay iyadoon u sii raacisay in iyada dhankeedana marka City maadaama isku xaafadii ahaayeen ay ka dadaali doonto in ay kasbato reerka oo walaashiis iyo hooyadiis Sambatiyo marka City ka diyaarsato si xoogaa ay ugu sii sahlanaato in reerku marka City aqbalaan guurkaneeti. Ugu dambeyn reerku waxa marka City aqbaleen guurka wiilkoodii iyo gabadhaneeti oo waxa ninka lagu magacaabo Sam iyo gabadhan lagu magacaabo Sofia isguursadeen 2008. Laakiin guurka marka ay galeysay gabadhaneeti lagu magacaabo Sofia qalbi ahaan ninkaneeti boqolkiiba boqol kuma aysan qanacsaneen oo xiriir waxa marka City ee la lahayd ninka kale Australia marka City jira ee lagu magacaabo Arn jaamacadda masterkana marka City isla diyaariyeen. Laakiin ninkaneeti balankii oo ay la gashay uun marka City dantay doontaba ha qaadatay maadaama dan ay ka leedo ay ku dangaaraysa sida la isdhigi karo guurka sidaas iyo marka City ninkan koowaad ee xiriirka la lahayd ee lagu magacaabo Sam ay sida City marka nolosha oo la qaabays bilowgii si caadi ah wax marka City isugu muuqdeen oo guurkoodii kadib hal sano ninkan lagu magacaabo Sam iyo gabadhaneeti Sofia waxa u dhashay cunugoodii marka City ugu horeeyay. Ninkan lagu magacaabo Samna si nolosha reerkiisa u sii hormariyo waxa shaqo marka City uu ka helay shirkad ku taalo waddanka City Oman halka City uu marka u wareegsaday. Waxaana India ku haray gabadha lagu magacaabo Sofia iyo wiilkeeda iyaduna waddanka City India marka City ka sii shaqeysanaysay. Noloshuna sida City marka ku wada socotay oo ninkan Oman iska joogay xaaskiisa iyo cunuga marka City uu dhalana waddanka City India marka ku noolaayeen. Gabadhan lagu magacaabo Sofia waxa jirtay gabar qaraabo ay ahaayeen oo waddanka City Australia ku sugnayd way wada xiriiri jireen. Waxaana marka maalmaha kamid ah dhacday in gabadhaneeti Sofia gabadha qaraabada la ahayd oo Australia ku nooleed iyadoo marka City la hadlaysa in gabadha City Australia ku sugan maadaama nursing ay ku shaqeynaysa ku tiri Sofia maadaama aad baratay engineering halkaneeti isku soo day in shaqo marka City aad ka hesho halkan horumar badan yaa marka ka sameyn karta saas iyo marka ku dhiirigelisay. Sofia iyadoo hadalka City saameyn uu ku yeeshay dhanka kalena waxa jirtay in Australia uu ku noolaa ninka labaad ee xiriirka marka City ee la lahayd oo iyadoo la qabo iyo xiriir ninka la marka City la sii lahayd ninkaasna Australia marka City ku noolaa. Laba jaanis iyo marka City iska tusto istiri haddii shaqo marka aad ka hesho waddanka City Australia gabadhan Sofia halka City aad tagto waxa ku sahlanaa doonto in ninkaneeti Arun oo xiriirka marka City aad la lahayd oo rabitaankeeda maadaama xaq u badnaa ninkaneeti guur kaliya marka City kula jirtay waxa istustay in nolosha xagga City marka muhiimad u sii yeelan karto. gabadhan lagu magacaabo Sofia waxa ay raadisay shaqo in waddanka City Australia ay ka hesho shirkadaha iyadoo marka City la xiriirtay waxaana shaqo ugu dambeyn marka City ay ka heshay shirkad ku taalo waddanka City Australia. Waxaana ninkeeda marka u sheegtay xilliga City in shaqo ay ka heshay waddanka City Australia halka City marka ay u wareegan doonto si nolosha ay marka horumar uga sii samayso. Ninkeeda waa uu ka aqbalay oo kuma uusan diidin maadaama uu istusayay in nolosha horumar marka City ka sii samayn karaan. Laakiin gabadhaneeti waxa ay wadatay qayaano
oo lama dhihi karo boqolkiiba boqol danta markaasiti ay ka arkayso waddankaas Australia keliya waxa ay tahay in halkaasiti ay tagto ka shaqaysato oo nolosha markaasiti horumar ay kasii sameeyaan la isma dhihi karo oo dhanka kale waxa ay jiray nin xiriir markaasiti kala dhexeeyo in halkaasiti uu ku noolaa waa ay baxday halkaasiti markaa tagtay ninkan waddankaasiti Cumaan ku noolaa xaaskiisa maadaama Australia u wareegatana noloshu waxa markaasiti uu istusay in isagoo gabadhana markaasiti u sheegayo in muhiim markaasiti ay tahay in ay midoobaan oo Australia markaasiti u soo wareegan doona laakiin gabadhu hadalkaasiti ninka uu sheegay ninkeeda in Australia uu soo wareeganayo kuma aysan farxin boqolkiiba boqol maadaama ay diidaneed in nolosheeda la wada ogaado oo waxyaabo u qarsan marka ay jireen maadaama ninka Australia marka la joogo ee xiriirka markaasiti kala dhexeeyay ay doonaysa in ninkeedu markaasiti uusan ogaanin oo nolol ahaan waxa iska rabtay in ninkeedu Cumaan kaliya uu ku sugnaado iyadan halkaasiti ay ku sugnaato Australia ninka xiriirka kala dhexeeyana si istiraxa oo in badan markaasiti aan la ogaanaynin oo nolol qarsoodi halkaasiti marka inay ninka kala kula kulanto ninkan waxa markaasiti uu ku soo dadaalay Sam lagu magacaabo ee waddankaasiti Cumaan ku noolaa in shirkadda qaybta markaasiti uu ka shaqeynaayo ee baranjigaasiti Cumaan shirkadda waxa jirtay baranji kale inay ku leedahay xarun kale waddankaasiti Australia waxa uu ku dadaalay codsiga shirkadda markaasiti u qortaba waa laga aqbalay in waddankaasiti Australia loo soo wareejiyo halkaasiti marka uu soo wareegto waa uu ku faraxsanaa ninka lagu magacaabo Sam in reerkiisa xaaskiisa iyo cunugiisa marka waddankaasiti Australia uu kula midoobayo halkaasitina marka ay kasii wada shaqaystaan oo nolol waxa marka uu istusayay farxad iyo horumar markaasiti inay sii gaari karaan markii uu yimid Sam ninka lagu magacaabo waddankaasiti Australia una yimid xaaskiisa iyo cunugii markaasiti ee dhashaba gabadhan kuma aysan farxin oo waxa jirtaba in isbedel markaasiti uu arko gabadhii hore uu u yaqaanay in gibi ahaanba markaasiti ay sii bedeshay weji kale iyo markaasiti kala kulmay oo gabadhan waxa marka iska ahayd nin mid markaasiti ka qarsata ninkaniyati ninkeeda waxyaabaha marka nolosha markaasiti ay sameynayso oo iyadu waxa markaasiti maadaama noloshan kale qarsoodi u wadato mid ku dadaalaysa in noloshaniti private u ahaato ninkeeduna markaasiti uusan ogaan ninku waa uu shakiyay laakiin maadaama cadayn markaasiti uusan helin laakiin kaliya qalbigiisa waxa uu sheegay in wax ay qaldan yihiin oo sidaniti caadi marka gabadhaniti aysan ku ahayn laakiin shibiyus ka dhahay marka tuhumadana markaasiti waa iska jirtay waxa jirtay in ninkaniti iyo xaaskiisaba Sam iyo Safiya iyo cunugi marka ay dhaleen waqtiga fasaxayda waxa ay sameyn jireen in ay soo aadaan wadankooda India si marka reerahooda ay ula kulmaan oo sanad walba waqtiyada fasaxa marka ay soo helaan halkaasiti India marka soo aadi jireen 2015 bishii 10aad waxa jirtay in fasax 2 isbuuc markaasiti ay soo heleen qoyskan waxayna soo aadeen waddankaasiti India si halkaasiti reerahooda waqti markaasiti ula qaataan ninkan waa uu walwalsanaay oo wax inay qaldan yihiin xaaskiisa ka qaldan yihiina waa uu dareemay oo waxa jirtay xitaa in baaritaan markaasiti uu ku sameeyay gabadha in fariin mar uu arkay gabadhaniti ay dirtay oo ninkii xiriirka kala dhexeeyay ku leedahay ilaa intee in la ega kala maqnaan karnaa oo ninkaniti aniga markaasiti aan la sii joogaya ninkaniti waa uu qaraxmay laakiin waxa jirtay in uu haddana markaasiti iscelinayay xilligaas India markaasiti ay soo aadeenna abiis ninkaniti waxa uu sheegay Sam lagu magacaabo abiis in ay dhici karto waqti kale in sidaniti marka aysan u kulmi doonin oo waxa uu ku dhahay ninka lagu magacaabo Sam abiis waxa laga yaabaa aabo in markii xigtii aan ku imaanayo meedkiga lagu keeno oo aniga qof markaasiti xayo nool aan ku imaan doonin halkaasiti abiis markuu u dhahay adoogii wax weyn marka kama uusan soo qaadin sidoo kale waxa jirtay dad u dhow oo qaraabo markaasiti asxaab la ahaa in hadalkaasiti isla sidaasiti marka uu ku dhahay waa ay laabteen oo 2 isbuuc markay u dhamaatay qoyskaniti waa ay laabteen waddankaasiti Australia dib markaasiti ugu laabteen oo 12 bishii 10aad 2015 India ka tageen halkaasiti waddanka Australia dib markaasiti ugu laabteen waxa dhacday 2 cisho kadib in gabadhaniti marka ay maleegtay falkaniti ninkeedii ugu qarajinayso oo ninkaniti oo marka shaki qabay oo gabadhaniti ka shakisanayba haddana ma ahayn qof aad uga taxadarayo iska ilaalinayo oo ma uusan filaynin heer ilaa in ay sumayso xaaskiisa in marka ay dhici doonto gabadhanitina iyada iyo ninka markaasiti xiriirka la lahaaba waxa isla qorsheeyeen in ninkaniti la sumeeyo si hantida ay kaga qaataan
nololna markaasiti ay ugu dhistaan oo sidaasiti markaa qorshahooda uu ahaa waxaa dhacday galbaha ka mid ah xilli shaqo markaasiti uu ka imaaday ninka lagu magacaabo Sam xilligaasitina waxaa guriga ku sugnaa ninka lagu magacaabo Arun iyo gabadhaniti Sofia lagu magacaabo markii guriga uu yimid Arun guriga qayb ka mid ah markaasiti isku qariyay laakiin waxa markaasiti Sofia ay sameysay maadaama ay isla maleeyeen qorshaha maalintaasiti qorshaha uu ahaa in 14 bishii 10aad 2015 ninka loo dhameeyay Sam waxa dhacday markii uu yimid si kal gacaltooy marka ay ku jirtay Sofia u soo dhaweysay ninkeeda iyadoo markaasiti wax canaaq ama dhibaato markaasiti aanan dareensiinaynin waxaana markay u keentay cabitaan laakiin cabitaanka waxay ugu soo dartay sun oo suntaasiti marka waxa ay doonaysay in uu ku geeriyoodo ninkan maadaama xaaskiisa uu islahaa heerkaasiti ma gaari karto shaki weyn oo ka qabo uusan jirin cabitaankii sunta ku jirta markaasiti waa uu cabay waxaan dhacday in dhulka markaasiti uu ku dhaco xaddi badan oo sun cabitaanka maadaama ay ku jirtana ninkaniti uu cabay dhulka marka uu ku dhacay wadnaha ayaa markaasiti istaagay Arun maadaama guriga qayb ka mid markaasiti uu ku sugnaa si caadi markaasiti u soo baxay ninkaniti markii uu dhacay oo sunta ay ku saaqday daqiiqado kadibna waxa markaa meesha ku geeriyooday ninka lagu magacaabo Sam hadda waxa markaasiti istuseen gabadhaniti lagu magacaabo Sofia iyo ninka lagu magacaabo Arun in ninkaniti lagu magacaabo Sam meesha uu ka baxay lacagtiisana ay sidaa ku qaataan nololna markaasiti ay ku dhistaan oo noloshoodu waxa markaasiti istuseen in hawshaniti sidaasiti markaa lagu dhameeyo waxa qorshaha markaasiti ay sameeyeen in noqotay in gabadhaniti ku ballameenba Arun iyo Sofia in si caadi xaaladda markaasi ay ugu muuqato in waxba aysan sheegin oo Arun habeenkaasiti gurigiisu iska aaday gabadhan lagu magacaabo Sofia ninkeedu markaasiti waa ay gurigii markaasiti kula hooyatay oo waxa iska dhigtay si caadi nolosha markaasiti inuu tahay subaxdii iyo markaasiti soo kacday oo waxa markaasiti ay sameysay in qaylo markaasiti ay ku dhufatay oo waxa iska dhigtay in ninkeeda sidaasiti markaa qadar uu ku geeriyooday habeenkii markaasiti u seexday qaylada waxa ku soo baxay dariska markii ay fiiriyana dadku waxa markaa ay waceen booliska ambulance markaasiti waa loogu yeeray waxaana dhacday in boolisku goobta markii ay ka qaadeen ninka isbitaalkan ay geeyeen ay xaqiiqsadeen in ninkaniti markaa uu geeriyooday gabadhan lagu magacaabo Sofia waxa iska dhigaysay qof daacada iyadoo ooynaysa tiinaaysanna iyo waxa markaasiti sameeynaysa jilin si aan looga shakinin in mas'uuliyad ninkaniti markaa ay sumeysay waxa dhacday 3 maalin kadib taariikh xilli markaasiti ay ku aadaneed 14 maadaama uu geeriyooday oo bishii 10aad 2015 in cid markaasiti loo soo sheegay oo la dhahay wiilkiini waa uu geeriyooday oo warbixin waddankaasiti Australia markaa ay kaga timid aabaha waa uu qaracmay laakiin hadalka iyo dib markaasiti u xasuustay waqtigii ugu dambeeyay ee wiilkiisu ka tagay waxa laga yaabaa aabo in anigoo nool markaasiti aanan dib kugu soo laabanin oo meedkii markaasiti lagu keeno booliska Australia si caddayn ay ugu helaan meedkaniti waxa uu u geeriyooday waxa ay sameeyeen in baaritaanna markaasiti ay sameeyaan oo baaritaankoodu waxa markaasiti uu noqday in cad markaasiti jirkiisa ay ka qaadaan jirkiisa ay baaraan waxaana markaa ay sameeyeen in meedkii u soo diraan waddankaasiti India si reerkiisa markaasiti ay u aastaan laakiin warbixinta waxa markaasiti u direen sheebaarkuna waxa markaasiti uu sameynay si taxaddar leh baaritaan dheer oo qoto dheer markaasiti la sameeyo sababta in markaasiti la ogaado boolisku way ogaadeen in ninkaniti la sumeeyay oo sababta suntaasiti marka uu ku geeriyooday laakiin mas'uuliyadda cidda dusha u saari kareen ma aysan garan karin oo gabadhu waxa markaasiti ay soo raacday meedka ninkeedii oo waxa markaa ay soo aaday waddankaasiti India si markaasiti reerka ay ula timaado una muujiso in waxaaniti ay yihiin qadar oo kale iyaduna markaasiti ay ka xun tahay iyo markaa reerku waxa markaa isaga dhigaysay maalmahaas ay la joogtay qof tiiraanaysan maalmo kadibna waxa markaa dib ay ugu laabatay waddankaasiti Australia oo nolosheedu sidaasiti markaa ay ku wadatay laakiin gabadhan xoogaa taxaddar iyo markaasiti sameynaysay oo guriga umuusan imaan jirin ninka lagu magacaabo Arun waxa markaa ay ku kulmi jireen ninkan iyo gabadhaniti in ay meelo qarsoodiyo markaasiti ay ku kulmaan oo noloshooda markaasiti ay noqoto mid private inta xaaladdaniti ay ka degaysan sidaasiti ay markaa qorshaysteen si aan looga shakinin 5 bilood kadib ninkaniti markii uu geeriyooday waxa markaa dhacday gabadhan lagu magacaabo Sofia in
bangigii lacagtii u taalay ninkeeda gebi ahaanba markaasaytii bangi kale ay ku xawilato. Waxaana bangigaas kale si wadajira markaasaytii u furtay ninka lagu magacaabo Aaron meesha marka shirqoolku la maleegay iyo gabadhaneetii lagu magacaabo Safiya. Bangiyay wada furteen, lacagtii dhan halkaasaytii marka u xawishay 5 bilood kadib bangiga ninkeedii lacagta markaasaytii taalay. Waa ay sii socdeen. Waxaana boolisku markaasaytii ay noqotay in gabadhaneetii ay ka shakiyaan oo cadeyman dheeriya markaasaytii ay ka raadiyaan. Waxaana markaa jirtay in booliska cadeymo waxyaabo markaasaytii sameynayeen ay noqotay in gabadhaneetii dhaqdhaqaaqeeda markaasaytii la ogaado oo la kontrolo. Sidoo kalena cidda ay la hadashana markaasaytii inuu daba galo. Maadaama 5 bilood kadib booliska ay ka shakiyeen in dhammaan lacagtii bangiga taalay gabadhaneetii ninkeedii markii uu geeriyooday gebi ahaanba markaasaytii ka xawilatay akoonka bangi kalena markaasaytii ay ku xawilatay. oo bangigaas kalena waxa si wadajira markaasaytii u furtay ninka lagu magacaabo Aaron ay qorshaha markaasaytii ku jiray iyo gabadhan oo ninkeedii markaasaytii soo shirqooshay lacagta wadajir heshiisiya markaasaytii ku ahaayeen in nolol markaasaytii ay ku sii samaystaan. Boolisku ayagoo sidaasaytii u shakisan koolalkooda markay dhageysteen waxa markaasaytii ogaadeen in labadaneetii qof xiriir markaasaytii uu ka dhaxeeyo gabadhan lagu magacaabo Safiya iyo ninka lagu magacaabo Aaron. Laakiin weli mas'uuliyadda dusha uma saari karin oo cadeyn dhabo markaasaytii ma aysan haynin. Waxa dhacday in boolisku maadaama ay ogaadeen labadan qof xiriir markaasaytii inuu ka dhaxeeyo si cadeymo dheeriya markaasaytii u sii helaan waxa markaasaytii ay sameeyeen in boolisku cadeymo kale markaasaytii koolashoodii waxyaaba markaasaytii isdhaafsadeen ayagoo tix raacayo. Waxa markaasaytii dhacday in ninkaneetii lagu magacaabo Aaron in qof markaasaytii loo diray oo saaxiib si markaasaytii uu la noqdo. Ninkan Aaron waxa markaasaytii uu sameyn jiray in kalaabiyada markaasaytii uu tagi jiray qamrina markaa uu cabi jiray oo nin yaa markaasaytii la daba dhigay si warbixin wax badanna markaasaytii loo sii ogaado. Aaron waxa dhacday habeenada ka mid ah ninkaasaytii booliska u soo direen iyagoo saaxiibo markaasaytii ay wada noqdeen ninka booliska soo diray iyo ninkaneetii lagu magacaabo Aaron in habeen goob markaasaytii ay wada tagaan. Aaron ninkaneetii qamriyo markaa isku daldalay uu iska hadlay waxaan uu sheegay cadeymo badan waxyaabo markaasaytii ay sameeyeen sheeko iyo markaasaytii ku noqotay in halka ninkaneetii lagu magacaabo Aaron waxyaabo badan markaasaytii uu sheego. Ninkan cadeymankii markaa ka arursaday booliska ma u soo direen ninka lagu magacaabo Aaron. Sidoo kalena waxa uu baaray in uu dib u akhriyo fariimihii markaasaytii isdhaafsadeen. Hal booliska halkaneetii markaa kaga cadaatay in qorshaha markaasaytii isla maleegeen ninka lagu magacaabo Aaron iyo gabadhan lagu magacaabo Safiya mas'uuliyaddana markaasaytii ay tahay in labadoodu markaasaytii ay wada qaataan. Waxa fariin markaasaytii la soo gaarsiiyay qoyska ninkaneetii la dilay bishii markaasaytii 8 2016 fariin yaa markaa Australia dhankaasaytii markaa ka timid oo qoyska ninkaneetii la dilay oo u haystay cunugooda si qadara markaasaytii inuu dhintay loogu sheegayo in wiilkoodii markaasaytii ay dishay gabadhii xaaska markaa u ahayd lacagtiisana markaa ay la wareegtay qorsheedana uu ahaa in nin kale markaasaytii ay guursato. Odaygii mar kale iyo markaasaytii sii qaracmay oo reerku way aamini waayeen gabar bilowgoodii hore markaasaytii daris ay ahaayeen haddana wiilkoodii markay isguursadeen waqtiyadoodii ugu horreeyay guurka markaasaytii u arkayeen qof wanaagsan in falkaneetii haddana marka ay sii samaysay reerku waa ay ka naxeen. Waxay noqotay in maxkamad ay wajahaan gabadhaneetii lagu magacaabo Safiya iyo ninka lagu magacaabo Aaron xabsina marka ay ku mutaystaan falkaasaytii ay sameeyeen. Wiilkina waxa dib markaasaytii loogu soo celiyay gabadhaneetii Safiya ay dhashay reerka waddankaasaytii India joogay wiilkoodina markaa hore ay u dishay.